وسنتكي 1987 sirdoonka dalka Burkina Faso ayaa madaxweynihii dalkaasi Thomas Sankara soo gaarsiiyay warbixin sheegaysa in saaxiibkiis uu qorsheynayo afgambi uu rabo inuu xilka uga tuuro. Sankara ayaan rumaysan warbixintan kuna jawaabay oraah aan noqotay oo ahayd saaxiibadu isma khiyaamaan, laakiin nasiib darro 10 bilood uun kadib saaxiibkiis ayaa isaga iyo 12 ka mid ah wasiiradiisii si arxan daran ugu dilay bartamaha caasimadda dalkaasi kadibna la wareegay xilkii. Sankara ayaa ahaa madaxweyne da'yar oo ku dhiiraday ubabacdhigidda reer galbeedka gaar ahaanna Faransiiska. wuxuu bedelay magacii dalkaasi muddo yarna wuxuu ku gaarsiiyey inuu noqdo dal ka maarmay mucaawinooyinka reer galbeedka oo ku tiirsan naftiisa. wuxuu fagaare kasta Afrikaanka ku boorin jiray inay iska qaadaan heeryada gumaysi ee daahsoon ee ay reer galbeedku ku haystaan, wuxuuna taageero xooggan ku dhex yeeshay shucuubta Afrika oo ka dhex arkayay diidiilo ay ka dhex waayeen madaxdii hogaaminaysay. laakiin nasiib darro xukunkiisii ma noqon mid sii jira, waxaana maalin cad isaga iyo 12 ka mid wasiiradiisii lagu dilay rasaas iyaga oo shir ku jira. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonaa sheekada Thomas Sankara, qaabka uu ku soo gaaray xukunka iyo qaabkii loo dilay. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Thomas Noel Sankara ayaa ku dhashay 21 bishii 12 sanadkii 1949 tuulada Yako ee dalka Burkina Faso oo xilligaasi loo yaqaanay Jamhuuriyadda Volta. qoyska uu ka soo jeeday ayaa ahaa qoys sabool ah oo haysta diinta Kiristaanka. aabihii wuxuu ka soo jeeday qowmiyadda Fulaan, halka hooyadiina ay ahayd qowmiyadda la yiraahdo Muusa ee degta dalkaasi iyo galbeedka Afrika. markii uu dhameeyay waxbarashadiisii iskoolka hoose iyo dhexe, qoyskiisa ayaa la rabay inuu noqdo baadari diinta Kiristaanka faafiya, laakiin wuxuu doortay waddo ka duwan taas isaga oo 1977 galay iskool sare oo lagu carbin jiray saraakiisha raba inay galaan ciidanka. Sankara ayaa yaraantiisii tababar ahaan loogu diray dalal dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen Madagaskar iyo Cameroon. bilowga 70-meeyadiina waxaa loo diray isaga iyo saraakiil kale dalka Faransiiska si ay tababar ciidan ugu soo qaataan. Sankara ayaa si xawaare sare leh uga dallacay darajooyinka ciidanka ilaa uu muddo yar ku gaaray darajada gaashaanle. wuxuu aaminsanaa fikir ku dhisan Marksiyad ama Shiyuuciyad, isaga oo u janjeeray dabaqadda saboolka ah, aadna uga soo horjeeday gumaystihii galbeedka iyo sida uu u biliqaysanayo hantida dalkiisa. sanadkii 1983 Sankara ayaa fuliyey afgambi ciidan isaga oo garab ka helaya tiro ka mid ah saraakiishii ciidanka. wuxuu yagleelay golaha sare ee kacdoonka, isaguna wuxuu noqday madaxweynihii dalka. markii uu xilka qabtayba wuxuu bilaabay dagaal qaawan oo uu la galay dabaqadii ka talin jirtay dalkaasi oo isugu jiray saraakiil iyo ganacsato ka macaashi jirtay xukunka dalka, iyaga oo noqday mid uu xiray iyo mid dalka ka cararay. shacabka Burkina Faso ayaa aad u soo dhoweeyey xukunka Sankara. Sankara ayaa bedelay magacii loo yaqaanay dalkaasi oo ahaan jiray Jamhuuriyadda Volta, isagoo u bedelay magaca hadda loo yaqaano ee ah Burkina Faso oo marka Soomaali loo bedelo noqonaysa dhulkii ragga sharafta lahaa. Sankara ayaa bilaabay kacdoon xooggan oo uu dib ugu yagleelayo nidaamkii dalkan saboolka ah oo xilligaasi wajahayay marxalad aad u adag. wuxuu qarameeyey wax soo saarkii kheyraadka dabiiciga ah ee dalka, gaar ahaanna wax soo saarkii beeraha suufka lagu beero oo sanooyin badan ahaa kuwo gacanta ugu jira Faransiiska. wuxuu la dagaalamay gaajadii faraha ba'an ku haysay dalkaasi, isaga oo dib u habeen ballaaran ku sameeyey dhulkii ku habboonaa wax beerashada, kuna beeray in ka badan 10 milyan oo geed. waxayna Burkina Faso sannado kooban gudahood ku noqotay dalkii ugu horeeyey Afrika ee si gebi ahaana uga maarma mucaawinooyinkii reer galbeedka, kuna tiirsanaada wax soo saarkiisa gudaha. caafimaadka ayuu sidoo kale horumarin ballaaran ku sameeyey, isaga oo 2 isbuuc gudihii ku talaalay in ka badan 2.5 milyan oo carruurta dalkaasi ah. sidoo kale gabdhaha ayuu ahaa mid aad u taageera waxbarashadooda, isaga oo khasab ka dhigay in gabdhaha inta ay yar yihiin waxbarashada loo diro. siyaasadda arrimaha dibadda oo ahaa isbeddelkii ugu weynaa ee shacbiyadda u yeelay, ayuu Sankara qaaday tallaabo ka duwan tii ay qaadi jireen madaxdii Afrikaanka ahaa. Sankara ayaa fagaarayaasha caalamiga ah
si aan gabbasho lahayn uga taageeri jiray dadyowga dulman, isaga oo fagaare kasta shucubta Afrika ugu yeeri jiray inay iska qaadaan heeryada gumaysi ee weli saaran. Sidoo kale Afrikaanka ayuu ugu yeeri jiray inay midoobaan sida Yurub oo kale, meeshana ka saaraan kala tagga iyo dagaalada reer galbeedka mooyaane aysan cid kale faa'iidada ku qabin. Sannadkii 1984 wuxuu qaadacay in dalkiisu uu ka qayb galo ciyaaraha Olombikada oo ka dhacayay magaalada Los Angeles ee ku taalla dalka Maraykanka, isaga oo ku dhaliilay dalkaasi garab istaagga uu siiyo gumaystaha Israa'iil iyo sidoo kaleba kala sooca isirka iyo cunsuriyadda ku salaysan ee uu dalkaasi ka waday dalka South Africa. Sankara ayaa masraxiyad iyo riwaayad ka aaminsanaa waxa uu ugu yeeray madax bannaanida beenta ah ee ay ku naaloodaan dadyowga Afrika, wuxuuna fagaarayaasha ka sheegi jiray in madax bannaanidan mala-awaalka ah ay u hindiseen reer galbeedku si ay ugu maaweeliyaan shucubta Afrika, una dareemin hantidooda iyo dhulkooda ay boobayaan. Hadalladiisan iyo dhaqamadiisan lidka ku ahaa reer galbeedka ayaa sabab u noqday in Sankara uu wajaho cunaqabateenno dhowr ah oo ay ku soo rogeen dalal uu ugu horeeyo Faransiisku. Sankara ayaa beddelka reer galbeedka xiriir qoto dheer la lahaa dalalka Kuuba, Angola iyo Liibiya, isaga oo saaxiib dhow la ahaa Muammar al-Qadaafi. Sannadkii 1987 waxaa u bilowday Sankara dhibaatooyin ka dilaacay gudaha dalkiisa. Wuxuu khilaafaad hoose ka dhex bilowday saraakiishii ciidanka, waxaana dhowr jeer soo baxay warar sheegaya in la qorsheynayo afgembi xilka looga tuurayo. qayb ka mid ah saaxiibadiisa ciidanka ayaa ku eedeeyey inuu raacay siyaasado qallafsan oo dhinacyo kale u janjeera. Khilaafaadkan ayaa sabab u noqday in shacbiyadiisii uu ku dhex lahaa Burkina Faso uu hoos u dhac ku yimaado. Sankara ayaa joojiyey safarro dhowr ah oo uu sannadkaasi dalka dibaddiisa ku aadi lahaa si uu xal uga helo khilaafaadkan isa soo tareeyey. Sirdoonka dalkaasi ayaa u gudbiyey Sankara warbixinno sheegayey in saaxiibkiis Generaal Blaise Compaoré uu qorsheynayo afgembi uu rabo inuu xilka uga tuuro, laakiin Sankara ayaa rumaysan waayey warbixinnadan kana madax adeygay inuu il gaar ah u yeesho saaxiibkiis. Waxaana jirta oraah caan ah oo laga diiwaangeliyey Sankara oo ahayd saaxiibadu isma khiyaamaan. 15 bishii tobnaad sannadkii 1987 Sankara iyo 12 ka mid ah saraakiishii dowladdiisa oo ku shareeyay dhismaha kacdoonka ee ku yaalay caasimadda dalka Burkina Faso ee Ouagadougou ayay tiro ka mid ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran ku dileen isaga iyo 12 kaleba. Amarka dilkiisana waxa bixiyey saaxiibkiis Blaise Compaoré. Compaoré ayay sirdoonka Faransiisku u adeegsadeen si uu u dilo Sankara. Shaacinta dhimashadiisa ayay dowladdu ku soo koobtay inuu si dabiici ah u dhintay, lamana raacin tafaasiil kale oo dheeraad ah. Compaoré ayaa qabtay xilka madaxtinimo ee Burkina Faso, wuxuuna dalkaasi maamulayay 27 sano ka hor intaan isagana xilka laga tuurin bishii tobnaad 2014. Sannadkii 2021 maxkamad ku taalla dalkaasi ayaa Compaoré iyo 2 sarkaal oo kale ku ogtay dacwad ah inay ka dambeeyeen dilka Sankara, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. Sidaasi ayay ku soo idlaatay nolosha mid ka mid ah madaxdii ugu dhiiranaa uguna aragtida fogaa madaxda Afrika, isaga oo ku baxay gacanta nin uu mooday inuu yahay saaxiib uu ku kalsoonaan karo.